إله وين واحد هايني درقيو هايني دقو جنة فردوس الله ينقيو samafalka anfac foundation ayaa deeq raashin ah saaka gaarsiiyay danyartii agoonta ku dhaqan gudaha magaalada Boorama deeqdan oo ka timid urur ay ku midoobeen hablaha reer awdal ee ku dhaqan wadanka Switzerland oo lagu magacaabo bidhaanta dumarka iyaga oo soo wakiishay ururka samafalka anfac foundation munaasabadan oo ahayd mid lagu qaybinayay raashinka ayaa waxa goobjoog ah mas'uuliyiinta ugu sareeya ururka samafalka anfac foundation oo hormuud ka ahayd gudoomiyaha guud ee ururkaasi samafalaynta cadooshari iyo xogayaha ururkaasi Muxyidiin Raad Shabeel intii lagu guda jiray qaybinta raashinkani hadal kala duwan oo halkaas laga soo jeediyay ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Nuur Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya ururka samafalka anfac foundation waxana hadaladiisii kamid ah halkan waxaan uga mahadnaqaynaa walaalaha sharafta leh ee soo gaarsiiyay hantidan aad aragtaan raashinka walaalaha gobolka Awdal ururka haweenka bildaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wad arkaysaan hantidii aad soo bixiseen inay gaadhay masaakiintii inta iyo in ka badan waan idinka filanaynaa aad baan idinku soo duceynayaa iyaguna waxa ka mahad celiyay isla mar ahaantaana duco u diray danyartii agoontii la gaarsiiyay raashinkani iyo ubadkayagii baa tihiin ilaaha weyn waaxid hayni dargiyo hayni dhaqo jannada fardows allah ingeeyo allah inee beeriyo sidaad noogu soo hambaliyeyseen eed noogu soo timaadeen allah inee gargaaro xogayaha guud ee ururka samafalka anfac foundation Muxyidiin Maxamuud Aadan Raad Shabeel oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa hadaladiisii kamid ah annagoo ururka anfac waxaan halkan uga mahad celinaynaa haweenweynaha gobolka Awdal ee magacoodu yahay bildaan kuna nool Switzerland ku nool oo deeqdan lacageedna soo gaarsiiyay si aan ugu bedelno afurinayno qoysaska danyarta ah walaalaheena waxaan leenahay mar walba shukran halkaad ka keenteen ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bedelo walaalayaal halkana kuma eekee annaga ka urur ahaan waxaan naga go'an maalintaad waxna soo gaarsiisaan waxaan u dhaxaysiinaa hal maalin baan u dhaxaysiinaa halka maalin waa intaanu ku diyaar garoobayno annaga waxaan naga go'an ka urur ahaan saad noo soo gaarsiiseen inaanu dadka ugu danta yar ee aanu ognahay aanu markaaba annaguna gaarsiino bishii Ramadaan bay noo bilaabmaysaa caawa hadii ilaahay khayrkeeda haydin siiyo ilaahay xanuunada jira ee caalamka aafeeyayna haydinka nabadgeliyo sadaqada aad bixisateen dad badan baa jira oo haya oo aan hurayn laakiin haduu ilaahay idin garansiiyay maanta qoysas badan baad furateen inta iyo in ka badanna waan idinka fadhinaa annagana waxaad nagu ogaataan ka urur anfac ahaan inaanu meel kasta oo aad noo dirtaan iyo meel kasta oo aad tiraadaan ka dhaca inaan idinka dhacayno gabadii waxa hadalka qaadatay gudoomiyaha ururka samafalka anfac foundation samafalaynta cadooshari iyada oo u mahadnaqday walaalaha muxsiniinta ah ee deeqdan soo wakiishay anigoo ka hadlaya afka magaca ururka samafalka anfac foundation waxaan maanta oo bishii Ramadaan ee barakasneed la sugayo barita hadii la yiraahdo noo soo wakiishay deeq raashin ah oo nooga timiday walaalaha iyo bildaan oo fadhigoogu yahay Switzerland waxaan leenahay walaalo raashinka aad noo soo wakiilateen maanta waxa dadkii u baahnayd ayaan siinay indhihiina ayaad ku arkaysiin idinka soo wakiishay iyo intaad ka soo rurseen waxaan leenahay jazaakallahu khayral jazaa ilaahay miisaanka xasanaadkaada ku daro mar kale samafalaynta cadooshari oo hadalka qaadatay ayaa waxay fariin u dirtay walaalaha muxsiniinta ah ee ku dhaqan dalka iyo dibadiisaba runtii bishii barakasneed ay Ramadaan ayaa bilaabmaysa waxaan leenahay inta maanta la siiyana ilaahay dhadhamo shifo lah uga dhigo waxa kale oo baa qudraya walaalaha kale muxsiniinta ah jecel khayrka inay la baxaan sida walaalahooda oo kale inay ku dadaan iyaguna la soo baxaan dadka walba la soo bixi jiray waa bishii Ramadaan waa bishii la isku baahnaa waa bishii la iscaawin jiray waxaan leeyahay codsi dheer ku diraya inaad soo caawisaan walaalihiina kale intan runtii maanta aan siinana waa tiro kooban ka badan ayaan ilaahay ka rajeynayaa in ilaahay idinku soo dhiibo aad iyo aad baad mahadsantii walaalaha jazaakallahu khayr